السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا عشر كله أو حسله وعادين قعد سننا أرضيدا نوحرن يوتيوبك إن يوتيوبك وجدين ماشوا مراي وعربنا بالجدهد إنه جارنو طبعا كن أو سبسكرايب فضلا هدي أجانا لو كحرن تهاي جارسي أرضيدا كله شيء جري ماشى كوشيء جري كرتو بلاتفورم كاستعمال كرتو هذا فيسبوك هذا سيدس كاي واتسابك نوشيء جري سي أن أودا ماسترنا أبو حنا طبعا كن مدة هل بالله وعربنا ما أنت عشر أرديد بدن كود سوي دين إن عشر كاسو أخرين ساعد مركز سوي حلو كله هيسو بدنا وحلو بدن يهاي الله استعماله إنجليش هانتا وعاركه ضدها يو إن 5 p.m. 6 p.m. 7 p.m. 8 p.m. 8 a.m. سواحيلي أهانتا سيدال لوردها وقت جاز ساعدها أشياء سواحيلي أهانتا محقولنا كوجو هره وحربنا إن أصل فيرينو وحلده ساعة ومحي مركورة ساعة وساعد أنا جوها فيرنا وحواي جنسي قابك يكوسو مساء وساعد الواقية كوجو حكى بلا بينا ساعة ساعد كلا بعده حواي دقيقة 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 ودقيقة وعربنا هنا فيرينو دقيقة سكوندة أو سدحات سكوندة سدحات أو البرقسي seconds أفراد نوسو أو بر نوسو ويصدنك أصلا فيرينو عيدا وأركدونا وحقل أركدونا شناد روبو أو روبي وروبو هذه كرتا إيو روبو لا بأس مالك كرتا وروبي لحد كسوروبو روبي ديمان كسوروبو روبي ديمان أرجنا مرك ساعدها نرنا مركا إنا سواحل أهان وشجنو أصلا فيرنا ساعدها عربنا إنا سواحل أهان وشجنو ساعد كواد هل ساعة صباح نمو 7 a.m. English سواحل أهان تدا 7 a.m. سواحل أهان تدا مسه هل ساعة صباح نمو لصعو مد كوجو هره إنا أصلا جرانو إن مركز ساعد الشيء يسو لبا قابة سومالي لو شيء لبا قابو حواي هدا طلب هل ساعة صباح نمو هل ساعة صباح نمو 7 a.m. وحاجة دونتا ضدها يو طلبادي أرور نمو عايز فهمنا يا وحدها يعني طلبادي أرور نمو horta koogu hore saacada intaanan baran waxa rabnaa inaan kala saarno labadaas qaab oo loo akhrinayo qaabka u go'eena markaas waa xiliga isticmaaleyno waxa u go'eena anaga dadkan dhahayo hal saac subaxnimada 7 am ta dadka toos u akhrinayo oo dhahayo todobadii aroornimo halkii aroornimo todobadii aroornimo ee dhahan todobadii waxay ula jeedaan hal saac subaxnimo sababtoo ah todobay u qoran tahay sababta todoba ugu qoran tahay ee todobadii caadi ugu dhahayaan dadkaas ma raacina dadkaas waxa raacina dadka dhahayo hal saac subaxnimada sheegayo todobadii ugu qoran tahay ma ahane hal saac dhahayo halkii sheegayo dadkaas todobadii aroornimo dhahayo marka la gaaro todoba saac duhurnimo marka la gaaro 1kii so English ahaanta waa 1 p.m. sooma English ahaanta waa 1 p.m. ayaga waxay dhahayaan halkii duhurnimo laakiin dadkan kale waxay dhahayaan sawaaxil la mid ah todoba saac duhurnimo dadkan todoba saac duhurnimo dhahayo sawaaxiligooda qaadana marka todoba saac eraygan todobada iyo saacdan toos sawaaxil loo bedeli karaa so saas darteed u qaadanayna kow marka fiirino 7 am mise hal saac subaxnimo sawaaxiliga maxay dhahaan waxay leeyihiin saa moja asubuhi saa moja saas darteed u dhahnay hal saac subaxnimo dadkaana raacina waxa u dhahnay waxa waaye dadkan luqadooda toos u bedeli karnaa sawaaxil toos ugu bedeli karnaa waxa leenahay hal saac saa moja subaxnimo asubuhi so badana asubuhidan iyo adhuhuri iyo al-asiri waa ka tagi kartaa simply because waqtigaas la joogo waa bataqaana qof ku weydiiyay inay subaxnimo tahay u jeeyo qasama inaan subax raaciso waxa leedahay saa moja hal saac saa moja hal saac hadda waa dhihin 7 English hanta iska yareyna isticmaasho daarad inuu sawaaxili ku fudaado wax walba oo Englishka loogu badan yahay ha ahaado days of the week oo kale siku za week maalmaha isbuuca
waxaa loo badan yahay Swahili ahaanta English ahaanta so adiga Swahili baradka isku day ina waxyaabahaas Englishka loogu badan yahay isticmaasho saa Swahiliga u barato saacada labaad 2 pm 8 saac duhurnimo 8 saac anaga saacadan waxaa leenahay 8 saac 2 pm Soomaali ahaanteed maxay noqonay 8 saac Swahiligeeda u imaanayna marka waxay noqonaysaa saanane waxaa dhahnay 8 saac halka meel oo dadkan 8 saac dhahayo dadkaana raacayna dhahnay halka meel ugu duwanna waxa waaye Swahiliga markii halka meel ugu duwan waxa waaye saa iyo 8 saada Swahili ku soo horeeyo tiradii Soomaali ku soo horeyso 8 saac tiradii soo horeyso 8 saac saacadii dambayso tanne saadii soo horeyso tiradii dambayso so 8 Swahiligeed maxaa waaye waa 8 saacad maxaa waaye saacadii soo hormarinayna hadhihin toos ha u bedelin hadhihin 8 saac 8 saac ma dhehaysid waa isfaham Soomaa 8 saac ma dhehaysid haya so meesha waxaa isku raacnay waxaa dhahnay saanane 8 saac waxaa u imaanaynaa 11 saac 11 saac 11 saac mise 11 saac isku meeshi galabnimo waa 5 pm 11 saac 5 pm 11 saac waxaan rabnaa marka inaan Swahili u bedelno waxay noqonaysaa saa 11 mid kale oo idin maxaa waaye waxaad raacin kartaa kaamil ah saacada buuro markay tahay kaamil hadee wax raacsan tahay waa arki doonaa wax raacsan badanaa marka wax raacsan dadka intay ku wareersan yihiin wax ka taabanayna kaliya inta kale hadee tahay maxaa la dhihi jiray 8 saac oo kale hadee wax raacsan tahay 12 daqiiqo 19 daqiiqo toos tirada Swahili caadi u sheegaysa na daqiiqa iyo daqiiqad saas raacinaysa waxa uu imaanaa marka saacada afraad 8:30 AM ahaato mise PM ahaato hadda tusaalahaan PM ka qaadanayna 8:30 PM macnaheeda waxa waaye 2 saac iyo bar 2 saac iyo bar 8 saac maaya 2 saac iyo bar sida waxay ahayd 2 ahayd English ahaanta iyo dadkan kale isku mid ah dadkan kale oo dhahay labadii saddexdii afartii iyo English ahaanta isku mid ah dadkan dhaho hadda tusaalahaan oo kale 2 saac iyo bar dadka 8 markay ugu qoran tahay 2 saac bar dhaw waxay isleeyihiin Swahiligiisa leeyihiin saas darteed u kala saarnay so waxa leenahay saambili na nusu 2 saac iyo bar saambili na nusu 2 saac iyo bar waxa u maleynaa in si fiican loo fahmo inta uu imaana marka labadan u dambeeso oo labada saayid qarday ii weydiiyena saane kasorobo ugu hore waxa ku sheeganaa English ahaanteeda Soomaali ahaanteeda kabacdi Swahili ugu gudbayna waa 3 saac no waa 9:45 am mise PM mid ka qaadato 9:45 am adahno 9:45 am waxaan rabnaa inaan dhahno Soomaali ahaanteeda waa 3 saac iyo 45 9:45 PM waa 3 saac 45 qaab kale oo u dhihi kartaa English ahaanta iyo Soomaali ahaanta intaas Swahili gaarina ka hadla oo ku soo celina waxa dhahnay 9:45 am 3 saac iyo 3 saac 45 daqiiqo English ahaanta waxa kale oo dhihi kartaa 15 minutes to 10 15 minutes to 10 waa isfaham sama mise quarter to 10 waxa uu imaanaynaa Soomaali ahaanteeda waxa dhihi kartaa 4 saac oo 15 daqiiqo mise 4 saac oo rubi dhiman Soomaali English ahaanta waxa dhahnay 15 ki waa sheegnay rubigi waa sheegnay rubi dhiman quarter ki waa sheegnay Soomaali ahaanta waxa dhahnay 15 daqiiqo mise rubi dhiman laakiin maxaa ku wara dhahnay waxa meesha soo gashay 4 saac tirada meesha ku qoran 9 waaye 4 saac soo gashay laakiin 4 saac waaye ma dhahoone waxa leenahay 4 saac oo dhiman 15 daqiiqo mise rubi dhiman Swahili ahaantana isku meeshi Swahili ahaanta waxa leedahay saanne kasorobo 4 saac oo dhiman
ruby haddaad dhahdo se u qoran tahay haddaad dhahdo saa tatu kasorobo haddaad dhahdo meesha saa tatu waxay isku bedelaysaa meesha 9 waxay isku bedelaysaa 8 45 sideeda kusoo ahaane haddaad dhahdo saa tatu kasorobo 3 saac oo ruby dhiman haddaad dhahdo hadda saas u akhriso waxay noqonaysaa qoraalku wuxuu isku bedelaa 2 saac 45 daqiiqo hadda qoraalka meesha ku qoran oo ah 9:45 mise 3 saac 45 macnaheedu waxa loo jeedaa waa 4 saac oo dhiman ruby so taas markay qoran tahay tirada qoran 9 qoran tirada ku xigto hadhow sheegaysa badan imtixaanka ardayda online ku qaato kale mise ardayda iskuulka kale imtixaamaadka markay galayaan meelaha qaladka ay sameynayaan meelahaas حتى اسكبا دافبو منهجka aniga bixinay systemka hadda aniga bixinin oo hadalka lagu talagalay hadii laga soo tago iskuulada high schoolku kale ardayda way ku weeraraan imtixaamaadkaas oo saacada so iska fiiri marka qorayso kasorobo iyo robo labadaba so tan ku xigto robada galina 9:15 waa 3 saac iyo 15 daqiiqo waxaad dhirtaa marka Swahili ahaanteeda saa tatu na robo mise saa tatu na dakika 15 mise saa tatu urobo waa dhihi kartaa saa tatu urobo saa tatu na robo waa dhihi kartaa saa tatu urobo waa dhihi kartaa waxaan u maleynaa cashirka si fiican in looga faa'iideystay wixii su'aalo aad ka qabto commentiga noogu soo reeb cashirka u baahan tahay mise leedahay codsan lahayd in lagu soo gudbiyo commentiga noogu soo qor yaa la hilmaamin videoga bilowgiisa waxaa dhahnay in ardayda lagu faafiyo loo share gareeyo channelkiga si ay ayagana ugu faa'iideystaan waxaan u maleynaa cashirka in si fiican loogu faa'iideystay wabillahi tawfiiq